asalaamu calaykum qaarta soo dhawaada. Waxaan doonaya maanta inaan tusiyo farsamo yar oo aad kombiyuutarka Windowska ku qarsan karto waxyaabaha adiga private-ka ku ah ama aad diidayso dadka kale haddii kombiyuutarka ay u dhiibto ay arkaan. Waxaad samaynaysaa marka u horeyso kombiyuutarka desktop-ka kaalay, kadib right click C, kadibna new dheh folder, kadib folderka magaca waxaa u bixisaa alt 225 kadibna enter dheh. Markaad folderkaaga aad samaysato oo aad alt 225 taabato magaciisa wuxuu noqon doonaa blank, kadib right click C, kadibna waxaad tiraa properties, kadibna waxaad tagtaa customize, kadibna waxaad doorataa change icon, kadib halkan usoo soco waxaad doorataa iconka halkan ee blankiga ah ee bilaa calaamada ah, kadibna okay dheh, kadibna okay C. Hadda waxaa kuu soo baxay folder aan la arkaynin oo bilaa calaamada. Haddii iminka meel cidla taabto folderkayga saas buu ku lumay, qof arki karta malaha. deet waxaan samayn karaa wixii secret aan haysto, waxaan samayn karaa inaan folderkayga ku dhex rido. Okay, haddeertaan failkii secretka ahaa waa la waayay. Haddii aan double click siiyo folderkaygii, failkaygii secretka halkaas buu igu jiraa.